dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad ka soo qayb gashaan halkan waana idinku soo dhaweynayaa kulankan oo qarankeenna u leh ahmiyad weyn waayo waa halkaynu ku go'aaminaynay jihada aynu qarankeenna qaadsiinayno taladeedana ka bixinaynay hadduu ilaahay idhaahdo markaan ka hadlayno horumarka waa maxay horumar haddaan ka hadlayno horumarku ma aha si akademiga markaanan u sharaxin laakiin waxa weeye horumarka qaranka marka la leeyahay horumarka qaranka waxa looga jeedaa waxa weeye waa meel la gaarayo waa geedi aan u rarayno bulshadeenna waa destination marka had iyo jeer message-ka waan ku soo celceliyaa sababtaan ugu soo celceliyaana waxa weeye inaan la isku qaldin had iyo jeer ala mashruuca iyo horumarku waa destination halka haddaba aynu rabno inagu inaynu rabno mujtamaceenu waxa weeye way caddahay waa aragtida uu ku hogaaminayo madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi qaranka oo cad aragtidaas waxay leedahay waa inuu dalkayagu ahaado dal xasiloon oo dimuqraadiya oo nolosha dadkiisuna wanaagsan tahay barwaaqo loo siman yahayna ay ka jirto farsamo ahaan marka qaabkaa loo dhigo haddii aynu u dhigno haddaba qaab cid walba ay isla fahmayso waxa loo jeedaa in dadkeenu nolol fiican galaan haddii aad aragto ama dib u eegto aragtiyaha adduunka ama fishanka qarannada adduunka ay leeyihiin waxaad arkaysaa ereyaday doonaan ha isticmaalaan meeshay doonaan ha ka soo wareegaan waxay isugu soo biyo shubanaysaa in dadka qarankaasi uu nolol fiican galo ereyga ugu badan aad ku arkaysaa waxa weeyaan in ummaddaasi noqoto ummad marka qofku ka laho uu soo helo noloshiisii oo uu ku noolaanayo uu soo helo waxa uu cunayay inuu garan karayo waxay dhahdii jaraalo waa work class middle class baan gelinaynaa bay dhahdeen dadka waanu waqtiga halkaa leeg marka la gaadho uu middle class noqdo oo macnaheedu yahay qofku inuu shaqeeyo oo wax soo galaan bishii uu noqdo halkan inagu soconaana dadkeenu inaynu gaarsiinaa 2030 horta waa halkaa weeyaan hawsha noocaasa marka laga shaqeynayo mas'uuliyadda ay leedahay cid walba maanta markaa way garanaysaa waa mas'uuliyad weyn in hawsha laga shaqeeyo si aynu haddaba mas'uuliyadda sida loo kala leeyahay u fahanno ugu horeyn waxa ugu sareeya horumarinta qaranka sameyntiisa waa madaxweynaha waxa ku soo xiga guddi uu madaxweynuhu magacaabo oo la yiraahdo guddida qaranka ee horumarka guddidaasi waxay mas'uul ka tahay inay eegto hadba wixii la soo sameeyo qorshaha qaranka inuu waafaqsan yahay siyaasadaheena iyo hiigsigeennaba waxa ku sii xigta wasaaradda qorsheynta waa maxay wasaaradda qorsheyntu shaqo kale ma qabato shaqada qabata waxa waa in aragtida qaranku uu leeyahay hadiyo jeerale ay u turjunto nidaam ficila ama mashaariicda ama hawlo kala badho in nidaam ficila ay u turjunto ayay hawsheedu tahay wasaaraddu haddaba sida kaliya ku shaqeysaa waxa weeyaan waxay la shaqeysaa baalal ay ku duushay leedahay kow marka qorshayaasha qaranka sameynayso waxay kala shaqeysaa ciddii ay khuseysay dadkii loo sameynayay ayaa ka mid ah horumarka hadday tahay dhalinyarta hadday tahay haweenka hadday tahay dadka laga tirada badan yahay ganacsatada oo muhiim ka noqonaya mashruucan iyo cid kasta oo ay khuseyso ayay kala hadashaa waxa ka mid ah dadka ay hadi jeeraale ka wada shaqeeyaan waa idinka oo halkan fadhiya idinku maxaa tihiin waxaad tihiin dadka ugu muhiimsan marka laga hadlayo horumarinta qaranka waxaad tihiin farsamo yaqaanadii hawshan ficil ahaan u turjumayay sidaan aaminsanahay waxaad tihiin dadka ugu aqoonta badan leh marka laga hadlayo samaynta ama turjumidda qorshe qaran marka laga hadlayo aragti si qorshe qaran loogu bedelo dadka ugu habboon waxaana taa asal u ah in hay'ad kasta oo qarankeenu leeyahay markii la yidhi 3 qof soo xula oo hawsha ka shaqeeya inay dadkii ay soo xuleen aad tihiin ayaa iyaduna meesha taala
walaalayaal mar labaad waxaan ku celinayaa mas-uuliyad weyn bay hawshaas haddaba maanta laynoo xil saaraya ay leedahay mas-uuliyadday leedahay waxaa ka mid a tusaale ahaan markaynu arrimaha caafimaadka ka hadlayno waxaan dadkeena u kala go'aaminaynaa geeri iyo nolol markaynu dhaqaalaha ka hadlayno waxaan dadkeena u go'aaminaynaa barwaaqo iyo fakhrinimo ama saboolnimo ayaynu kala go'aaminaynaa arrintaas waxay u baahantay inaynu mas-uuliyad iska saarno oo aynu wakhti badan gelinno foomamka iyo xogta laydinka doonayo aynu ka ilaalino waxyaaba aan sax ahayn inaynu gelino arrinta kale aan doonaya inaan hoosta ka xariiqo waxa weeyaan mashaariicda marka laga hadlayo cilmigu waa cilmi adduunkao dhan waa ka cilmi laakiin wuxuu ku kala duwan yahay sida uu ula falgalo ummadaha kala duwan ee dunida ku nool sidaa awgeed waxa mar walba marka mashruuc la design gareynayo laga hadlaa ee ugu badan ereyga ugu badan waxay yidhahdaan contextual factors waxa weeyaan arrimaha saamaynta ku yeelan kara mashruuca marka loo eego dhaqanka iyo qiyamka iyo noomka bulshadaasi ay leedahay waxaan jecelahay inaad u eegtaan markaad hawl kasta samaynaysaan arrimaha noocaas oo dhan inaad eegtaan hawsha aad wadaan miyay waafaqsan tahay duruufteenna hawshaynu wadnaa duruufta ayna haysata ma isweydaarsan yihiin hawsha aynu wadnaa ma tahay wax ahmiyad u leh bulshadeena marka la eego duruufta haysata waxaasoo dhan iyadoo lagu xisaabtamay inaynu samayno ayaan doonaynaa go'aano kale ka fuula inaan ka ilaalinaan doonaynaa waddankeenna inaan barwaaqo u hogaaminaan doonaynaa waxaan aaminsannahay inaan waddankeena barwaaqo u hogaamin karno laakiin waxaan u baahanay inaan ka fiirsanno waxa aynu halkaa ku qoranayno intaasaan aan jecelahay horta dardaarankaasi inaan idin siiyo mar labaad waxaan ku soo celinayaa ummaddeenna halkii aynu geediga u raraynay 2030 ayaynu qorshaynaynaa xil weyn baynu iska saaraynaa mar labaad mar saddexaad waxaa kaloo idinka mahad celinayaa ma aha markii horreysay hawshan ka qayb qaadataan oo bilahan oo dhan waan soo shaqaynaynay oo soo wareysanaynay kulanaynu soo lahayn laakiin maanta waa halkii ugu muhiimsaneyd baad idinku doorkiinni u marayaa marka waxaan rajaynayaa inaad xog ku salaysan dhab inaad hadduu ilaahay idhaahdo aada u soo gudbin doontaan si loogu saleeyo qorshaha qaranka ee la samaynayo ee qorshaha saddexaad aynu idhaahno intaasaan kusoo gebagabaynaya wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu